halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon. assalaamu calaykum. waan ku salaamay daawada meel walba aad dunidan aad ka joogto kusoo dhawow mar kale iyo muuqaal kale oo ku saabsan macluumaadka dhanka sirdoonka iyo sheekadii taxanaha ahayd ee isbahaysigii Mossad iyo sidoo kale sirdoonka CIA ee dalka Mareykanka. qaybtii hore waxay noo joogtay sheekada iyo macluumaadka ku saabsaneed dalalka Ciraaq, Syria iyo sidoo kale Masar sidii ay Israa'iil ay ugu beertay sirdoonno kala duwan. Azra Naji waxa uu ahaa Yahuudi Ciraaqi ah oo dhashay sanadkii 1927 waxa uu ka shaqaynayay wasaaradda ganacsiga. 1953 ayuu guursaday Yahuudiyad aad u qurux badan oo la yiraahdo Rawaan. meherkeedu waxa uu noqday in Azar uu u qiyaameeyo dalka Ciraaq, waxaana tababaray basaas Yahuudi ah oo asalkiisu u Iiraani ahaa. hawshii ugu horreysay ee loo xilsaaray waxay ahayd soo gudbinta Yahuudi Ciraaq, markii dambena waxay u leexdeen asaga iyo xaaskiisa sir aruurin iyo basaasnimo weyn. naagtiisa kaligeed waxay soo xirigelisay oo ay basaasiin Israa'iil ay ka dhigtay 13 Ciraaqiyiin ah, balse sanadkii 1966 ayaa kooxdii Azar la ogaaday oo gacanta lagu dhigay isaga iyo naagtiisa 5 sargaal oo sarana toogasho ayaa lagu dilay. qaybta saddexaad waxay ku bilaabanaysaa sidan. qabashadii Ilan Cohen ee lagu qabtay dalka Syria isla markaana la daldalay Israa'iil qaranjab ayay ku noqotay. mudanihii basaasiinta Mossad oo silsilada ay ku xiran yihiin argagax ayay ku noqotay. dowladii Yahuudana waxay dadaal u gashay sidii Cohen lagu soo dayn lahaa, balse Amiin Xaafid madaxweynihii Cohen dhakray weli asaga ayaa dalkaasi ugu sarreeya, waana shaki la'aan inuu ka aargoosan doono Cohen. arrintii la xiriirtay MiG 21 dhinac ayuu iska dhigay Amiid si ku meel gaara, isagoo isku howla tii Cohen iyo basaasiinta kale ee fariimahooda ay ka muuqato cabsida inay gashay. waayo markii basaas gacanta lagu dhigo kuwa kale dareen cabsi ah ayay dareemaan, iyo sidoo kale adna waa lagu ogaanayaa fikraddaas ayaa niyadooda gasha. iskuday badan ayaa adduunku waxa isku dayay sii daynta Cohen, balse dowladda Suuriya waa ay diiday xitaa inay ka hadasho arrintan, oo waxa ay gaadhay in wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya inuu xafiiskiisa uu ka eriyo nin ka mid ah madaxda sare ee adduunka arrintaas oo kala hadlaya darteed. Amiid waxa uu go'aan ku gaaray inuu carabta uu ku dhifto dharbaaxo aysan ka soo waaqsan, balse wuxuusan ogeyn in aayuhu ay u qariyeen dharbaaxo kale oo isaga iyo Mossad ku dhacda. oo 35 maalmood kadib markii la qabtay Ilan Cohen 22 Febraayo sanadkii 1965 waxaa gacanta lagu dhigay Wolfgang. waxaa kaloo gacanta lagu dhigay isla xaaskiisii iyaga oo jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar. Wolfgang qaybihii hore ayaan kaga soo hadalnay oo wuxuu ahaa nin u dhashay dalka Jarmalka laakiin sirdoon u ahaa Yahuuda oo Masar ka shaqaynayay, isaga oo iska dhigaya inuu ahaa ruux fardaha dhaqda. ra'iisul wasaarihii Israa'iilna aad ayuu uga xumaaday arrimahaas, waxaana uu ku eedeeyay Amiid inuusan dadaal badan uusan wadin. taasina aad ayay uga caraysiisay Amiid, waxaana uu aaday saaxiibkii John oo ahaa madaxii CIA-da ee Mareykanka, iyo arrintii duuliyaashii Ciraaq ee Texasna la geeyey. waxa ujeedadiisu ay ahayd si uu u sameeyo waxa uu ku badbaadiyo magaciisa iyo sharaftiisa, balse duuliyaashii Ciraaq waxaa ku xirnaa nabad sugidda dowladda Ciraaq oo ula socday sidii ay yihiin cunokariyaal iyo maamulayaal, kuwaas oo qayb ka ah safarkooda gobolka Texas. Amiid waxaa horey u qaatay sawiradii duuliyaasha iyo sidoo kale mid walba warbixintii laga soo gudbiyey. markii rag xeel dheerayaal ah ay baareen oo arrintii si fiican ay u eegeen, waxa u soo baxday in 3 duuliye midkood ay bartilmaameysadaan saddexdaasi oo kale ahaa: 1 Dhamme Shaakir Maxamuud Yuusuf. Shaakir wuxuu ahaa nin qar iska tuura, aadna u naaga jecel, oo fasaxi yar ee uu helaba naaga bursi ku dhameeya, galmadana si waali ah u jecel. qofka labaad wuxuu ahaa Xidigle Xaamud Daaxi. Xaamud wuxuu ahaa nin reer diin ah oo xishood badan, naagaha aan wax ku darsan, xiriir galmana aanan lahayn, balse aan gooni joog ahayn oo baararka iyo goobaha tumashada aada. inkastoo uusan qamriga cabin, waxaa loo doortay in uusan khibrad u lahayn xiriir gaar ah, sidaasi daraaddeedna naag bara fiican ah ama si fiican aqoon iyo khibrad u leh ay gacanta ay ku dhigi karto. ruuxa saddexaad wuxuu ahaa Dhamme Munir Rova oo ahaa masiixiga keliya ee ku jira duuliyaashan, balse wuxuu ahaa nin aan aad u socod badnayn oo xitaa fasaxa toddobaadka aan xerada ka bixin, oo markastaa la socda ama ku lifaaqan madaxa kooxda si uu warbixin fiican uga dhiibo markii dalka lagu laabto. inkastoo markii hore isaga uu ahaa Mossad ragga u sharaxan kan koowaad, haddana xayndaabka uu ku dhex jira dartiis ayaa isaga looga gaabsaday oo labadii duuliye oo kale ayaa diiradda la saaray.
shaakir maxamuud waxa uu ka dhashay qoys dhaqaale leh oo deganaa magaalada xilla oo ah hareerta baqdaad. waxa uu dhashay sanadkii 1936 markii uu ka baxay dugsigiisii sare ayaa waxa uu galay kulliyadda ciidamada halkaas oo loogu qaaday dalkii Soofiyeed. waxaa loo tababaray duuliyad diyaaradeed nooca saakhoyga oo aad ugu fiicnaaday ku dagaalankeeda joogga hoose iyo ka hortagga diyaaradaha weerarka. wuxuu aad ugu fiicnaaday ku hadalka afka ruushka, taasoo u suurtagelisay dumar badan oo mar kasta oo u wado, iyo sidoo kale dhexgalka bulshada halkaasi deganeed. shaakir wuxuu shaki la-aan u noqday mid ku fiican aqoonta diyaaradaha, duulinta diyaaradaha iyo soo jiidashada dumarka intaba. markii uu qalin jibiyey ee uu ku laabtay dalka Ciraaqna waxa uu ka shaqo bilaabay saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala koonfurta magaalada Baqdaad, waxaana la sheegay in halkaasi uu ku guursaday. aad ayay ku gaftay ama ku fududaatay dowladda Ciraaq in duuliyaheedaas ay u dirto dalka Mareykanka, balse qorshuhu wuxuu ahaa mid ay dejisay CIA-da oo ninka ciidamada Mareykanka u fadhiya safaaradda Mareykanka ee Ciraaq ayaa ku qanciyay sargaalka sare ee Ciraaqiyiinta ah inay ku wanaagsan tahay in Ciraaq tababar duuliyaal ay ugu dirto Mareykanka oo ay ka faa'iideystaan tiknoolajiyadda heerka sare ee Mareykanka. markii doorashadii Muusaad ku dhacday Shaakir Yuusuf iyo Xamid Daaxi, Muusaad waxay CIA-da hordhigtay warbixintii laga soo aruuriyay dhamma Shaakir oo ay soo aruuriyeen Cazaar iyo xaaskiisii Rawaan. warbixintu waxay ku sheegeen in Rawaan ay la kulantay Shaakir iskuna dayday inay quruxdeeda ay ku soo jiidato, balse uu iska indhatiray. haddana mar kale ayay xiriir ay yeesheen, xiriirkaasina si kadis ayuu ku go'ay markii Shaakir Mareykanka uu aaday. ayada oo la ogyahay meesha uu u jilicsan yahay oo laga maamuli karayo ayaa si gaara waxaa loo baray gabar aad u qurux badan oo yahuudiyad ahayd oo nin ka tegay uu iska celin karo. waa gabadha la yiraahdo Korter Hakler oo si dhaqso ah looga keenay magaalada Vienna, halkaas oo ay uga shaqeynaysay CIA-da, waxaana ay ka ahayd kaaliyaha cisbitaalka Mareykanka ee halkaasi ku yaala. Hakler waxay ku jirtay da'da sodomiyada, naag dheer oo dhexdhexaad ah, fool dhuuban oo qurxoon, tin dheer oo xariira, dibno qurxoon, indha birqaya oo maanqaad ah oo hooyadeed Talyaaniga ahayd ka dhaxashay. waxaa kale oo ay hooyadeed ka dhaxashay diirimaadka naagnimo ee lagu yaqaano dumarka koonfurta Talyaaniga. halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan isbahaysiga CIA-da iyo Muusaad ee dowladaha Mareykanka iyo Israa'iil. qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo. halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon.